dowladda Iran waxay leedahay mar idage Allah hadago mar labaad idagana ana istagay ujeedadu maxay tahay waxa hadal kulul jeediyay ninka la yiraahdo Cabdiraxiim Muusaawi ninkaas markii la magacaabay ee saaxiibkiisii ka horeeyay ciidanka ugu sareeyay la dilay isaga uu talada la wareegay Iran oo xaaladdu ku xun tahay duqeymo adag ay ku socdaan ciidankii xiriirkiisa xitaa la yiraahdo qaybo kamid ah waa go'een la yaaban yahay dahraan indhaha kor loo taagayo ayuu wuxuu ka soo hormuuqda telefishinka qaranka xilligaas waxa uu yiri dab baan shidi doonaa Israa'iilna waa ooyi doontaa shacabka waa dul qaadateen raalli ahaada kadib wuxuu sameeyay gantaaliye waa tii inta la fasaxay Haifa Beeru Sabca iyo Tel Aviv waxa aragtay ay ka dhaceen gantaalo la yaab leh caawa mar kale ayuu markii ugu horeysay taariikhda ee labaad dagaalka markuu istaagay ayuu warbaahinta iskaanay waxa uu leeyahay annaga in la gaadayo oo nala dhakrayo oo wax socdaan rag fahmi waayay oo ciyaaraha iyo dagaalka iyo sida loo sameeyo garan waay manihin shacabkiisa waxa uu ku yiri waxba hawlwalina ciidamadeeda difaacayna waa joogan tiknoolajiyadana iyo farsamadana waa ka hormarsan tahay sidoo hore diyaar garow dhameystiran ayaa la galay marka wuxuu yiri annaga dagaalka ma bilowno oo dad lagu yaqaano inay colaad horseed u noqdaan manihin inta dagaalka bilaabi jirta waligeed Israa'iil ay ahayd hatimaado waxay ka hesho ayay qaadan doontaa hadalkaas marka uu jeediyay waxa la leeyahay waxa uu noqday hadalkii ugu kululaa mas'uul ka tirsan dowladda Iran tan iyo wixii ka dambeeyay markii dagaalka uu istaagay ku dhawaaqay waliba ninkan oo warbaahinta hor yimaado hadal jeediyay waxay ka dhigan tahay sheegitaanka iyo ku dhawaaqista dagaal dhameystiran sida qubarada caawa telefishinada wax ka taxliilinaya ay sheegayaan ninkan 24 saac gudahood warbaahinta adduunka ayuu qabsaday laba jeer oo kala duwan waliba laba talaabo oo la yaab leh qaado koow waxa uu teleefanka ku wacay Riyadh waxa uu la hadlay Amir Khalid bin Salman wasiirka arrimaha difaaca ee dowladda Sacuudiga labada dhinac wada hadlay arrimaha dagaalka la isla soo qaaday teleefanka muddo dheer ayuu socday lama oga dowladda Iran inay ashtaka ka ahayd weerarka la fili karay inuu uga imaanayo xilliga hore saldhigga ciidamada cirka Mareykanka ay ku leeyihiin Amir Sultan Base ee ku yaala dowladda Sacuudi Arabiya in halkaas laga soo weeraray iyo in kale inkastoo diyaaradaha la yiraahdo Mareykan ay ka yimideen haddana dowladda Iran waxa ay walaac ka qabtay in halkaas diyaarada ka soo kacaysa dalkeeda duqeyn maadaama Ciraaqna laga weeraray Afghanistanna laga weeraray hadda marka waxay leeyihiin dowladda Sacuudiga waxay u muuqataa tigniin adag in la siiyay laakiin wakaaladda wararka Sacuudiga oo waas la yiraahdo waxay leedahay labada dhinac si weyn la isku afkartay waxyaabo badan miiska la isla soo saaray waxayna u muuqataa Sacuudiga wadada nabadda inay wax ka raadin doonaan war kooban ayaa oo diblomaasiyad ku qoranaya sida lagu soo bandhigay dhinaca Iran wax wara kama iman marka halka shakin badan ayuu qudheeda ee keentay inta waxa dheer madaxweynaha dalka jamhuuriyadda islaamiga Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa maanta booqday wasaaradda amuuraha gudaha ee wadankiisa wasaaradda dheelama waa halka inta ugu badan arrimaha sirdoonka iyo abaabulka kicinta dadka ee dagaalka uu ka imaanay waa door lama ilaawana ayay ku lahayd dagaalkii 12 maalin ee Iran ay gashay Pezeshkian halka markii uu tagay dadku kala hadlay waxa uu yiri Iran sumcad weyn loo soo hooyay wasaaradda qiimo weyn ee ku fadhisa shacabka Iran waxaan leenahay markasta hal diyaar garoobo marka abaabulad moodaa gudaha dalka Iran iyo kicin iyo dagaal inay ku dhex jiraan marka bariga dhexe inuu meel u socdo adiga iska garo dagaal baa loo diyaar garoobaya haddii aan si kale u iraahdo meedkii waa la duugtay urursiya lagu jiraa maalin ay bilaabanaysaa Soomaalida dagaal loogama sheekayo qodobkaas halkaas aan ku dhaafaya Gideon Sar ninka lagu magacaabay wasiirka amuuraha dibadda Israa'iil caawa isna waxa uu hor yimid warbaahinta hadal weyn oo kulul ayuu ku dhawaaqay waxa uu leeyahay nimanka la yiraahdo Iran adduunka ayay rabaan inay ku dheeldheelaan waxa uu yiri caalamka in lagu dheeldheelo annaga ma rabno mana aqbali karayno Iran ha aqbasho
hay-adda qaramada midooba u qaabilsan arrimaha nuclearka ee la yiraahdo IAEA waa in ay u ogolaadaan inay baaraan Rafael Grossi iyo xirtiisa dawladda Iran xiriirka u jirta waxay yiraahdeen wixiina basaasayba waa iyaga in xarumaheena la helo weerar ugu socdaan dadka saynisyaanada meeshay degan yihiin meel kale kama imaanay dhahan hay-adan ayaa la soo dhaxmaray sida daraadeed jabkii maalinta koowaad Iran qabsaday halkaas oo ka yimid marka Iran hadda afhayeena u noqotay waxa Israa'iil afhayeena u noqotay waxay leedahay annaga waxa rabnaa inay hay'adda wax baarto Iran marka ayna waxay u aragtay hay'adda haday imaato in lagu dhex jiro wax la basaasayo waa isgaadaya marka ninkaasna doodaas uu keenay Abbas Araqji teamkiisa oo asiga nadiirkiisa ah ama dhinaciisa kala taagan goos dambeedku ku qoslay adeer waa la isfahmay ayuu leeyahay xaaladiisa siday u agtahay intaas halkaas aan ku dhaafayaa ninka halkan ka soo muuqanaya si fiican u fiiri ninkan waa wasiirka amuuraha gaashaandhigga nidaamka Israa'iil waxa lagu magacaabaa Israel Katz ninkan waa nin taariikh ahaan aad loo yaqaanay 1955 ayuu ku dhashay magaalada la yiraahdo Asqalaan markii 7 sano ama 8 sano kadib Israa'iil ay la wareegtay halkaasi oo la dhisay waxa la yiraahdo dawladda Israa'iil oo nidaamkaasi Ingiriiska uu meesha keenay kadib ninkan waxa uu noqday muddo 3 sano oo kaliya inuu ka shaqeeyo militariga 1973 ilaa 77 waxa iska dhalay aabbo iyo hooyo Israa'iiliyiin oo asalkooda hore ka yimid Romania sida Al Jazeera ay qorayso waxa uu kamid ahaa dhalinyaradii ugu mayalka adkeyd ee jaamacadda Qudus ee Israa'iil maamusha ka soo baxay ninkan taariikhdiisa markii aan ku sheego xog badan baa daba taala hilmaaminaan meesha u socdo ninkan 1998 ayuu markii ugu horeysay baarlamaanka kaniisad galay waxa uu bedelay ninkii la oran jiray Ehud Olmert oo Israa'iil wax badan ka soo qabtay ninkan xilal kala duwan oo soo qabtay wasiirka beeraha wasiirka gaadiidka wasiirka sirdoonka wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maaliyadda haddana wasiirka difaaca waa la yaabantahay Soomaa ninka waxaanu xil wax ku qaatay ninkan wax kala maaha ma maqla jirtay hebel meel loo xiray ninkan Netanyahu saaxiib leeyahay wasaaradda kala duwan oo xira marka hadda maxaa ninkan warbaahinta adduunka ay sidaas oo dhan ugu daba gashay ninkan waxa la yiraahdo waa been boode iyo bilaash hayta sax marka siyaabo kala duwan loo fasiro hadalkiisa maxaa dhacay ninkan markuu dagaalka bilaabanayay waa hanjabay waxa uu yiri nimanka la yiraahdo Iran aniga hal laygu soo fiiriyo dagaalka aan ku qaado Bahrain waa gubanaysaa aada markii indhaha loo kala qaaday waxa la yiri maxaa dhici doona ninkii waa hanjabay dagaalka intuu soconayay Iran inkastoo ay dhibaato gaareen haddana taariikhda Israa'iil waxaan ku dhicina ku dhacay Beirut 7 Tel Aviv iyo Haifa gantaala loo qaybiyay qasaaro Israa'iil aysan gelin tan iyo markii dhidibada loo dhisay 48 qarnigii tagay ayaa ku dhacay isagoo wali wasiirka gaashaandhigga ah waxa la yiri marka odaga waaba naqaldaya kadib waa ninkii Ayatollah Ali Khamenei waa dilaynaa waa bartilmaameed fudud dhawaan haddana waa hadloodaga saa iskana barnaamij wuxuu yiri ninkan nin khabiir waaye oo ilbaxnimadii Faris oo dhan wata lamaba arki karaba waxa la yiri carabkii shalay miyaadan lahayn meeqa caraba afkaada ku jirta dooda hadda bilaabatay ninkan intuu meesha joogay ciidamada Israa'iil Iran waxay weerareen Tel Aviv taliyihii uu yiri waa la dilay Ismaaciil Khani ayaa ka soo muuqday fagaarayaasha 40 kamida saraakiisha sarsare ee Israa'iil ayaa warqad qoray oo Netanyahu ku yiraahdo dagaalka ma sii wadi karno jabhadda 8200 ee Israa'iil ayaa dhaleecay qaabka dawladda ee wax u maamulayso waxyaabo fara badan ayaa hadda taagan ninkan waxa leeyahay xilka wax kale kuma joogo waa fashilmay sida dadku ay tilmaamayaan laakiin ra'iisul wasaaraha ay saaxiib yihiin ayaa meesha ku haya haddii aad maqli jirto marka siyaasi hebel tabar oo wax ku maamula ama xilkan ku qabta ma jiro saaxiibkiisa naas nuujinaya haddii aad ka maqli jirtay geeska Afrika hadda ninkan wasiirka difaaca Israa'iil Netanyahu yaa naas nuujinaya